taariikhdu markay ahayd 20 bishii 2019 abaana 7 subaxnimo ayaa maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabada loo haystay gacan ku dhiig la shabaab Cabdullaahi Cali Aadan Maxamed 25 jir ina jelay Madiino Aadan kuna dhashay gobolka Baay kaas oo xafiiska xiriirinta ciidamada qalabka sida uu ku eedeeyay inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab isla markaana uu dilay marxuum Ekis Dable Ciise Cabdullaahi Cali xilli uu socdo weerar koox argagaxiso ay ku qaadeen 26 bishii 2018 xarun ay deganayeen dad wadaadada isla markaana ku taalay koonfurta magaalada Gaalkacyo taas oo ay ku nafwaayeen in ka badan 16 ruux maxkamadda ayaa waxay dil toogasho ku xukuntay eedeysane gacan ku dhiig la shabaab Cabdullaahi Cali Aadan taariikhdu markay ahayd 20 bishii 2019 maanta ay taariikhdu tahay kowda bisha 2022 ayaa la dheersiiyay xanuunka ciqaabta dambiyada uu geystay waxaana lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa ku-xigeenka xeeraaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dalka gaashaanle Axmed Cabdullaahi Buule ayaana ka hor hadlay goobta ay ka dhacaysay xukunka qisaasta ee lagu fuliyay gacan ku dhiig leh شباب عبد الله علي آدم محمد أن يلبى تنجرها بسم الله تاريخ مركه 20 بشي كوي تبنات 2019 أبارو تضبدي subaxnimo waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay gacan ku dhiig la shabaab Cabdullaahi Cali Aadan oo magaciisu afgarashadu ahaa Maxamed 25 jir ina jeelay Madiino Aadan ku dhashay gobolka Baay kaas oo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ku eedeeyay inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab isla markaana uu dilay marxuum Ekis Dable xooga Ciise Cabdullaahi Cali oo ka tirsanaa ciidanka danab ee xooga dalka Soomaaliyeed taariikhdu markay ahayd 26 bishii 2018 falkaas oo ka dhacay degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho oo qisaastii marxuum Ciise Cabdullaahi Cali taariikhdu markay ahayd 20 bishii 2019 maantay oo ay taariikhdu tahay 1 bishii 2022 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa wabillahi tawfiiq duqa degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Mudug ee Galmudug gaashaanle dhexe Cali Muuse Maxamuud ayaa iyaguna soo dhaweeyay qisaasta saaka lagu fuliyay gacan ku dhiig la shabaab Cabdullaahi Cali Aadan oo ay sheegeen inay tahay mid ay mari doona qof kasta oo ka tirsan kooxda argagaxisada khawaarijta nabadiidka argagaxisada al-shabaab runtii reer Gaalkacyo reer gobolka Mudug waxay u tahay farxad astaan ah in maanta toogasho laga fuliyo magaalada Gaalkacyo shabaab oo dadkan dhibaato iyo dulmi ku hayay xaq darro ku weerarayay dad muslimiin ku laayay Cabdullaahi oo kamid ahaa dadkii dad culumaana laayay ciidamadana qayb dilay saaka halkaana lagu oofiyay waajibaadkiisii ugana gudanay Ilaahay baa ku mahadsan waxa rabaan arada bulshada shabaab iyo annaga intaas naga dhaxaysa waa in la ogaado reer gobolka Mudug reer Galmudug reer Gaalkacyo shabaab iyo annaga intaas naga dhaxaysa wax kale oo arxan oo naga dhaxeeya dhalasho iyo wax kale oo naga dhaxeeya hawa yaraatay ma jiraan aad iyo aad baa u mahadsan halkan waxa ka dhacay dil qasqaas oo sharciga waafaqsan waxaan u mahad celinayaa xeer ilaalinta gudoomiyaha maxkamadda ciidamada iyo xeer ilaalinta iyo dhammaan garsoorayaasha gudoomiyaha degmada iyo ka qaybgalayaasha dhammaantood oo u mahad celinayaa qasqaastan waxay u dhacday si sharciga waafaqsan markii xukunka sharciga lagu qaaday ayaa dil toogasho ciidamadu ku sameeyeen markay amarka ka qaateen maxkamadda ciidamada qof kasta oo shabaab ah oo dad dhibaato u geysta ummadda halkaas u dambaysa